Assalaamu calaykum. Dal muddo 20 sano ka badan dagaal sokeeye ku jiray oo malaayiin qof iska laayay. Maantana ah mid ka mid ah wadamada ugu kobaca dhaqaale sarreeya ee dunida, uguna wax soo saarka badan. Dal tusaale u ah dal kasta oo xaalad adag soo maray. Vietnam waxay dhacdaa koonfur bari qaaradda Asia, gaar ahaan jasiirad lamoodka Indochina. Waa dal ay ku nool yihiin 97 milyan oo qof. Waxay ku jirtaa kaalinta 65aad dhanka baaxadda dhulka. Sidoo kale waa dalka 15aad ee ugu dadka badan caalamka. Waa dal muddo 20 sano ah ku jiray dagaal sokeeye intii u dhaxaysay 1955 ilaa 1975. Dagaalkaas oo u dhaxeeyay waqooyiga iyo koonfurta. In ka badan 1 milyan oo qof ayaa ugu dhintay dagaalkaas. Waqooyiga oo doonayay nidaamka shuuciyada ayaana ku guuleystay dagaalka. Markii dagaalka uu dhammaaday labada qaybood ay midoobeen, Vietnam waxay ku jirtay xilligaas xaaladda ugu xumeed ee dhaqaale ahaan. Waa la go'doomiyay guud ahaan. 80% dadkeedu waxay ku noolaayeen wax ka yar $1. Inta badan magaalooyinka dalka koronto iyo biyo nadiif ah kuma jirin. Xaddiga faqriga ayaa gaaray halkii ugu sarreysay. Kaliya qofkii leh baabuur ama mooto ayaa loo arkayay qofka ugu taajirsan ama haysta hantida ugu badan. Sanadii 1986 dawladda Vietnam ayaa dejisay nidaam dhaqaale oo loogu magac daray dhiiro oo micnaheedu yahay cusboonaysiinta dhaqaalaha. Halgan adag oo ay dadka reer Vietnam iyo dawladooda ay u galeen, waxay noqdeen kuwo hormuud u ah kobaca dhaqaalaha caalamka. Waxay hormuud u yihiin dalka ugu koridda dhaqaalaha sarreeya ee dunida. Sanadii 1993 xaddiga faqriga waxa uu ahaa 53%, maantase waa wax ka yar 3%. dakhliga soo gal celcelis ahaan sanadkii qofka Vietnameeska waa $8,000. Dhaqaalaha dalka waa wax ka badan 300 bilyan. Heerka shaqo la'aanta dalka waxa ay ka maraysaa wax ka yar 3%, waana mid ka mid ah dalalka ugu hooseeya. Dhanka waxbarashada iyo cilmi baarista, 95% dadka reer Vietnam waa kuwo wax qora waxna akhriya. Sidoo kale ku dhawaad 20 milyan oo qof oo dalxiisayaal ayaa soo booqda Vietnam sanad walba. Waa dal leh wax soo saar aad u sarreeya. Alaabta ay dibadda u dhoofshaan waxa ay kor u dhaafaysaa $220 bilyan. Nidaamkii ay dejisay dawladda Vietnam sanadii 1986 ayaa wadada baraaraha ku hagay Vietnam maanta. Waa nidaam dhaqaale oo horseeday inay Vietnam noqoto dal dhaqaale ahaan, aqoon ahaan iyo nolol ahaanba aad u horumaray. Vietnam waa dal nidaam ahaan shuuci ah oo raacsan nidaamka shuuciyada Shiinaha, balse nidaamkiisa dhaqaalaha uu yahay mid xor ah oo raacsan kan galbeedka. Waddankaasi waxa uu degsaday nidaam horumaray oo ka yeelay inay noqdaan kuwa hormuud u ah kobaca dhaqaalaha adduunka. Sanadkan ayaa la rajaynayay inay Vietnam ku biirto wadamada horumaray development country. Sidoo kale sanadda 2025 waxaa la rajaynayay inay Vietnam ay ka qayb noqoto 20ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka. Waa tusaalaha ugu weyn ay Soomaalidu ku dayan karto Vietnam. Waa dal horumarkii uu gaaray iyo wadadii uu u maray maanta in badan oo wadamada caalamka iyo goobaha waxbarashadu aad u daraaseeyaan. Hanoi waa caasimadda dalka, halka Ho Chi Minh ay tahay magaalada ugu weyn dalka, taasoo horey uu magaceedu u ahaa Saigon intaan loogu magac darin hogaamiyihii waqooyiga dalkaas ee Ho Chi Minh.